السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سلام يا صومالية ميل والبود دونك كجوكتان وحن إذن رجينا يا خير يا برارة. إن وحوها قبيعس أنا إذن مخشيني جامعة كذية أو قبيعات وقيرة بدن جدية ونا مقابحية أنا جو عرّو له إن جميت إعلان يان نقونه أنا جو عرّو له إن جميت إعلان يان نقونه مركا ujeedka barnaamijkan waxaa weeye wax kale ma aha gabayga jaamaca kadiina dhageysano kadibna in the meantime gudaha gabayga baan rabaa laba arrin oo muhiim ah inaan ku sharaxo mid waxaa weeye waraysi la yeeshay madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud oo la weydiiyey gobolada Sool iyo Sanaag waxa uu ka qabaa mowqifku ka aaminsan yahay waxaan ku xijin doonaa su'aal lamida oo la weydiiyey madaxweyne Farmaajo iyo wixii uu kaga jawaabay marka aan marka hore gabayga sii daayo kadibna labada arrin baan rabnaa inaan isla falanqeyno gobolada Sool iyo Sanaag iyo waxa kale ee ku xeeran maniga orada uu bedelayna baadigaagtay ilmigani mana ka dhigaya culaysiya maniga adqureed ka raba cudurka keenaya iyo maniga tugsado meel isla diida ay madi xalaal fahday abu dhaxalsiya adawaan ka weynahay maxay gaya abada adawaan ka weynahay maxay gaya cagahooda ilmigani mana ka dhigaya culaysiya ya cunaysiya maniga adqureed ka raba cudurka keenaya iyo maniga tugsado meel isla diida ay madi xalaal fahday abu dhaxalsiya adawaan ka weynahay maxay gaya adahooda maniga tolkay arkiyo ida kala guura idayda maa uu qarax nini cashuuraya mana agadiyo laba majood sita calankayga aagadii laba majood mana magacaanka abannimo ku hayaya qallimanu nahay maniga calalada umayra nimanka cadaysayo daryahan aga juglaynaya macaruusadad banahay markan culaya weelkaada maniga tolkay arkiyo ida kala guura idayda mana u raran inay cashuuraya mana agadiyo laba majood sita calankayga magacaanka abannimo ku hayaya magaca caanka qallimanu nahay maniga calalada umayra nimanka cadaysayo daryahan aga juglaynaya macaruusad banahay markaan culayo weelkooda macaruusad baan ahay aqligi ma idinka lumay meesha laga ciilay culuq yar loo tuuro naftaan meel ka celinin hoos idin celisay caaman lagu haynin idinkaba cod buuxo iyo xornimo caalamka u sheegtay meesha dawladnimo laguma hayuu leeyahay jaamaca kadiye daraata waan arkaynay video odayaal reer laascaanooda oo ka cabanaya maamulka Somaliland sheegayana in la xirxiray dhalinyaro fara badan oo reer Soomaali reer laascaanooda loona xiray kaliya calan Soomaaliyeed bay wateen waxaa kaloo ognahay inuu xiran yahay afhayeenka beelaha daarood oo isaguna la leeyahay macna daraa loo xiray marka dawladnimo ma jirtuu leeyahay jaamaca kadiye gabaygan mar hore uu tiriyey wuuna ka cabanayaa inaysan dawladnimo jirin caalamka u sheegta
baad ku cararteen eryama roob ma dayiyo cad habeenin weye waxaadoo shudida jiraan cunahan dhaafayni cunahan dhaafaynin calaa hadigo wuxuu tahay caadibiyo diini asaagiina haw cabaanine camalka loo leexda asaagin ha u cabanina camalka loo leexdo asaagiina haw cabaanine camalka loo leexda camalka loo leexda waxbayaan casuumada udgoon casha lay gelini casamad udgoon caasha lay gelina cadar ku yaallay imaamadii xariir cadar ku yaallay cimaamadina culusbati iyo caadi lay odhani waxbayaan sidii camal aroos lay cayaarsiini sida aroos lay ciyaarsiina anigoo irare inaan ku medcilaya noqon anigoo ciro leh inaan gumad celan yaan noqona iyo curashada roobka cafuurtiyo cibaadada rabbiban ciidankooda caruurta iyo cibaadada rabbi baan ciidankood ahaya gabay wuu sii socdaa wuxuu rajo ka qabaa keliya caruurta ka dhalan doonta sool iyo sanaag iyo ilaahay waxaan rabaa soomaalida is difficult inuu ku dhex noolaado ruux daacada ama uma daacada because qabiilada badankood daacad maaha dhulbahantana wuxuu ilaahay dhex dejiyey Puntland iyo Somaliland dhexdooda waadna ogtihiin taariikhda reerkaas waa dad wadaniyiina oo u soo halgamay wadaniyada Soomaaliyeed waxayna mudan yihiin sharaf marka waxaan rabaa inaan idin dhageysiiyo clip laga duubay xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo la wareystay oo clip laga duubay laakiin clipkii waxa u jawaabaya ninkii ahaa Faysal Cali Waraabe marka I think clipka inuu ku jiro labada fariimoodba madaxweynihii oo la wareysanayo iyo Faysal oo banaanka ka caayay madaxweynaha xasan sheekhow xalayta wala ku dhageysay markaad nid ma jeertaan aragtaan haddaad gaaltiin bish waad ka jiraa sida awrtu koronkeed soolisanaya kulli waxay dhulbaantaa leh war wax ma wadi kartaan ka mareexaan baan soo saarina madaxda ka jiray kaas ka baan soo saarina ballan waxaan ku qaadanaa ku soo celiyo farmaajo waxa la wax tiin ma jirto xasan sheekhow xalayta wala ku dhageysay clipka waa maqasheen laakiin clip kale aan hayay hadda ima muuqdo madaxweyne xasan sheekh waa la weydiiyey su'aasha sool iyo sanaag wuxuuna kaga jawaabay si qurux badan Soomaalidana way ogtahay mowqif cad buu ka qaatay gobolada waxa ka jira sool iyo sanaag wuxuu yiri waa dad Soomaaliyeed waa dad halgamayaal ah mana mudna in wax mudankooda ahayn aan la marsiiyo su'aasha su'aal la mida gabar Soomaaliyeed oo ka timid sool iyo sanaag weydiisay madaxweyne farmaajo wuxuuna ugu jawaabay su'aasha way uga adag tahay kama jawaabi karo clipkaasna dhayla dhageysta walaalayaal gobolka sool iyo sanaag iyo cayn waxay ka tirsan yihiin wadanka Soomaaliya I hope inaa maqlaysaan international community gabadha waxay leedahay sool iyo sanaag iyo cayn waxay ka tirsan yihiin Soomaaliya ku qoran yihiin inay yihiin disputed area oo isku haystaan laba gobol anu ma garanayo dawladdeenu waxay aaminsan tahay inay disputed haday yihiin waa meel ay isku haystaan laba dawladood waxa isku haystaana waa laba gobol oo waxay leedahay gabadha waxa lagu qoray inay tahay sool iyo sanaag disputed area dawladdu waxay aaminsan tahay in gobolada la isku haysto sidii laba wadan oo kale inay meel isku haystaan ay tahay oo disputed area ay tahay mise Soomaaliya waxay aaminsan tahay sool iyo sanaag inay ka tirsan tahay Soomaaliya wadankii ah marka seeladoodii systemka ay hawshoodu u qaybsan tahay waa system aan la yaabanahay si xuquuqdoodii waxaa la raaciyay Somaliland haddana doorashadoodii iyo siyaasiyiintoodii waxaa la raaciyay Somaliland haddana doorashadoodii iyo siyaasiyiintoodii waxaa la raaciyay Puntland marka say isu qaban kartaa maxay u noqon waayeen sida dadka Somaliland halkan loogu dooranayo ama meel kale ama maadaama Puntland leedahay laba magaalo ay leedahay way ay u weygeelan waayeen reer sool iyo sanaag ay meel yaga lagu soo doorto rooda ay ka hadashay sool iyo sanaag iyo electionkeeda roodo su'aashaadu waa adag tahay kama jawaabi kar raaligow rooda ay ka hadashay waa maqlaysaan madaxweynaha electionkeeda roodo su'aashaadu waa adag tahay kama jawaabi kar raaligow su'aashaada waa adag tahay kama jawaabi karo ayuu leeyahay madaxweyne farmaajo oo su'aasha la weydiiyey please dhageysa hadana rooda
ee ka hadashay sool iyo sanaag iyo electionkeeda roodo su-aashaada waa adag tahay kama jawaabi kar raalliga ohow waa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka hadli leeyahay sool iyo sanaag arrimahooda ninka leaderka waxaa laga rabaa inuu geesi ku noqdo hawl walbo oo adag haddii rabto ha noqoto waxa hadda Soomaaliya ka socdo kale oo la rabo in Soomaaliya la kala gooyo qaybna ay noqoto Puntland Somaliland qaybna ay noqoto Soomaaliya haddaad u fiirsataan khudbadaha uu jeediyo Master Waraabe ama Faisal Ali Waraabe always wuxuu ka hadlaa qabiilada Soomaaliya iyo qabiilo iyo waxaan loo joogin markay imaato siyaasadda Somaliland wuxuu ka hadlaa inuu qabiil jirin oo qabiilada ay isku mid noqdaan oo qabyaalada ay xun tahay marka waxaa la rabaa Soomaaliya inaad fahamtaan waa very simple qabyaalad waa waxyaalaha ummadaha ay ku burburaan iyo qabiilo haddii laga sheekeeyo ama la isku maamulo ama la isku xukumo haddii dan guud la raacana oo qofka Soomaaliga uu Soomaali noqdana waxaa dhacaysa in uu wax walba oo aan rabno ay noo hagaagaan marka madaxweyne Xasan Sheekh uu ka jawaabay su'aasha madaxweyne Farmaajo uu ka jawaabi kari waayay haddana way taagan tahay arrinka sool iyo sanaag iyo cayn doorashooyinkooda waxaan ka rajaynaynaa maamulka Somaliland Puntland inay aad isaga ilaaliyaan howlahaas oo ay soo saaraan qabiiladaas meesha degan dadka ay rabaan marka gabaygii aan sii wadno jaamacadii dadaalkiisa waday daayacbay helay intaan gabay dadaalkiisa waday daayacbay helay tan gabay dadaalkiisa waday dib u dhacay haddaan meel ka degilaay dantaydii ilaaway oo aniga dawgalkeeda leh oo dawgalkeeda leh waxaa diiray madaxayga maxaa diiray madaxayga deebtiyo kulaylkiyo waxaa daalkaygu reebay dabeecadiiga lunshay oo dacawga laymooday waxaan cidi dare maynin baa dilay naftayde waxaan cidi dareemaynin baa diday nafteedii waxaan cidi dareemaynin baa dilay naftaydii diirad baan ka liishaamayaa daabad gooniya dabayshiyo waxaan la hadlayaa iyowga dayreede dubigayga idinkoo arkaan xamar dawaafaye u kala qaadaya doollo iyo xeebe dacwad baan u kala qaadayaa doollo iyo xeebe dacwad baan u kala qaadayaa doollo iyo xeebe dalaalowsin baan moodayaa dooxageeda leh sabayl baan dugsi u qaatay iyo dadabsideedii dayax baan cadceed mooday iyo duur daraareedii xafiis moodayaa laga danaystaa dukaan baan xafiis moodayaa laga danaystaa meesha waa dukaan buu leeyahay xafiis baan moodayaa laga danaystaa dukaan baan xafiis moodayaa laga danaystaa dunidaba waxaan oolin oo layska duuduubay doraatana inuu muuday oo lagu dakaynayey oo aan waayey dabacdoodii baan dayday ahaaye oo aan waayey dabadoodii baan dayday ahaye dalki iyo maamulkii oo dhintay baan dabagucleeyaay dalki iyo maamulki oo dhintay baan dabagucleeyaay dalki iyo maamulka oo dhintay baan dabagucleeyahay waa waxa dad fara badan oo Soomaaliyeed ay raadinayaan dawlad fiican oo wanaag leh qabiilada qaarkoodna ay just raadinayaan inay iyagu manipulate gareeyaan the system oo ka faa'iideystaan dawladnimadii baan raadiyaa daabadda ahayde sharcigii oo lumay baan doon isleeyahay diintii iyo sharciga oo lumay baan doon isleeyahay nabadii baan weli u doodaay deganaansho iyo nabad baan weli u doodaay Soomaali baan weli u dudayaa dadkii baan u boholiyoobayaa daacadda ahay dadka Soomaaliyeed hore dadkii hore fiicnaa waa daacadda ahaye weli dulmeeraaye dastuurkii hogaankii wacnaa fiicnidii aan raadinayaa buu leeyahay weli diiwaankii meesha loo diray
balse inaan dayoobay iyo inaan dawga garanayo inaan dowga garanayo iyo dunidu inay waalan tahay ima daadegine nin daleel ka maansoonayo dahay baan ahaaye nin daleed ka maansoonayo daahay baan ahay nin daleel ka maansoonayo daahay baan ahay damiirkeed dhulbahantaan arkaa kaa kasii darani Damiirka dhulbahante aan arkaa kaa kasii darani waa niman dilaaliyo malaal daawaqadiyeene waa niman diraysu dilaal iyo malaal baa helay buu leeyahay dhulbaante wada jita iyo derejo beeneede darajo beeneeda waa niman diyaarahoo dhaqsaba loo dirsanayaaye dhaqsaba loo dirsanaya waa niman ninkii doonayaaba soo dalbanayaaye ninkii doonaya soo waa dalbanaya niman dufulayaala iyo daadufin falani madifin waa falan niman degdegayaan arkayn dabinka hoos yaalli daawinka hoos yaalla waa niman dadkoodii nacay oo doortay meel kale oo meel kale waa nimanan dib u fiirinayn duug waxay noqoneen daba dhidhibnima lagu rogiyo dafa reer kale damiirkeer waar damiirkeer dhulbahantaan arkaa kaa kasii darani waa niman dilaal iyo malal dabaqadiyeeni oo waa niman dirays wada jita iyo derejo beeneede darajo beeneeda waa niman diyaarahoo dhaqsaba loo dirsanayaaye war waa niman ninkii doonayaaba soo dalbanayaaye soo dalbanaya waa niman dufulayaala iyo daadufin falani daadufin falana waa niman degdegayaan arkayn dabinka hoos yaalli daawinka hoos yaalla waa niman dadkoodii nacay oo doortay meel kale doortay meel kale waa niman aan dib u fiirinay duug waxay noqoneen dabadhirifnima lagu rogay iyo daafac reer kale daafac reer kale hadba kii durbaanka u qabtaa bay dabagelayaani dabagelayaan ilaa iyo dabaaweyte waa lagu danaystaaye taa laakiin ma jirto iyagoo dayacan bay rag kale daadaxsanayaani iyagoo dayacan jaamaca kaditaa ma jirto adeer laakiin daraawiishtii waxaan aaminsannahay in xornimada soomaaliya ay heshay lagu helay madaxooda iyo dagaalka ay u galeen soomaalinimada marka intaa marka laga saaro inta kale waa okay rag kale daadaxsanayaani dahabaa shisheeyu la yahay kamana daalani folkuna waa u dacar iyo waxay duray ka qaadaan oo dusha saray intaa waabayaan daakhilkana mooge dusha sare intaa waabayaan daakhilkana mooge dusha sare bay intaa waabayaan daakhilkana mooge iyagoo dal iyo ciid leh oo dad iyo maal buuxa dal iyo maal buuxa oo aan dooda iyo deeqda iyo cidi dagaal dhaamin cidii dagaal dhaamin waa derajadii aadanaha lagu dambaysiinin Lagu dambaysiinin. oo dunida laga aamino oo daacad lagu sheego Daacad lagu ayuubay sheego. damaana u yihiin duul shisheeya ee danahooda inay maamushaan lagala soo daaliyaan iyagoo dad iyo ciid leh oo dad iyo maal buuxa Dad iyo maal buuxa. cidi dagaal dhaamin oo dunida laga aamino oo daacad lagu sheego oo aan derajadii aadana lagu dambaysiinin ayuunbay damaana u yihiin duul shisheeyahe danahooda inay maamushaan lagala soo daaliye inay dawladnimo muujiyaan lagala soo daaliye waa inay u wada jeensadaan lagala soo daaliye inay cadowga wada daafacaan lagala soo daaliye inay duul walaala ah yihiin lagala soo Grammarly is your personal writing assistant. marka ujeedka aan u keenayna gabayadan wax kale ma aha meeshaas waa meesha saldhigga u ah in ay soomaaliya hagaagto oo ay midowdo sool iyo sanaag dadka deganna they deserve ama waxay u qalmaan treatmentiga hadda lagu hayo treatment ka fiican kow in laga daayo dhibka ay ku hayso somaliland oo ay xirxiraysa dadka ay ku dhibayso dhulka ay degan yihiin faisalna warkiis waad maqlayseen inuu lahaa muxuu ahaa dhulbahanta keligii ma laha meesha waa lala leeyahay ama waa lala degan yahay and that is the argumentiga uu rabo faisal iyo dadka la midka ah inay ku doodaan marka soomaalina taariikhda way taqaanaa dhulkaas cid iskale ama cidda degan waa la garanayaa inagoo inaga ahayn isku dir iyo xumaan ay naga ahayn waxaan rabnaa inaan u fahmno
meesha ciladana haysata Soomaali haddaan nahay waa qabyaalad waay. markaan ku fiirino indhaha Faysal Cali Waraabe wuxuu mar walba ka hadlaa qabiilada Soomaaliya iyo say u kala degan yihiin, say yihiin iyo say isu haystaan iyo hawiye iyo daarood iyo waxa si problemka uu sii socdo marka qabiil iyo qabyaalad in la joojiyo ka hadalkeeda iyo ku isticmaalkeedaba qaran Soomaaliyeed la helo sool iyo sanaag iyo cayn iyo inta kalena loo helo xal Soomaaliyeed oo u qalmo ummadda Soomaalida way isfahmi laadahay ma ogiyo waa dadka ugu richsan Africa, very rich country. hadday shidaalkeeda soo deysato, haddii ay dhulalkan ay leedahay ay ka kiraysato ummadaha kale badahan iyo waxaan aan leenahay wax aan la qiyaasi karin waay. marka aan gabaygii usoo noqono raalahaada. hadday deris noqdaan reero kale waa dad qaaliyahi dudmad iyo dululu axun iyo hadallo daylqaafa dabci xumadan aan kala lahayn da iyo waayeelba dirada iyo beenta iyo xaasidnimo duuban degdega iyo waalida xune laysu daaraayo damaaciga ka waayadan dambeba laysku dayanayo sidii dumar la wada guursaday oo daano kala gaadhay ka qaba oo ayaan darani hadda daydo dulwada dhashay oo diirka ka coloobay iyagoo iswada diidan baa laga danaystaa dadkii walaalaha isdagaala haddii aadaydo waar haddaa daydo dulwada dhashay oo diirka ka colooba iyagoo iswada diidan baa laga danaystaaye hadalkuna dux buu leeyahay in laguma daaleyni duruufaa idin gaar ah iyo dabeecsanaantiinu isagoo dhimayaane way kala daraadeen oo doqonnimo laban iyo waa dabaalnimo doqonnimo laban iyo waa dabaalnimo doqonnimo laban iyo waa dabaalnimo docda bari waqooyigan dadban ee deris wadaagteena docda bari waqooyigan dadban ee deris wadaagteena dakliyada Itoobiyada iyo koonfurta durugsan qayaceena goorta yarkeen iyo dagnaanteena dusha nala ka wada baayaca mana dareentaane dushaana ka wada baayaca mana dareentaane dadka inaynu kala iibino oo dollar lagu qaato oo qoys bareer lagu daro laydin kala daadsho amase laysku kiindiro hadhow direba meel aado dadaalka rag badan baa ku jira kamana daalaane kollayba way isku dayayaan inay dadi noqolaane dembiiraha haddii aynan raban inaad dilaala ayaa heli mayno dawada runta oo daldana obalayay kowde waa mahadsantihiin Soomaaliya meel walbood adduunka daafihiisa ka joogtaan. haddaada weli subscribe noo saarin fadlan subscribe noo saar. waxaan rabnaa in aan soo gudbino gabayo aad u qiimo badan oo sharaf badan oo taariikh Soomaaliyeed ah. ujeedkeennuna waa inaan ka shaqeyno wanaaga iyo fiicnida ummadda Soomaaliyeed. goboladaasna waxaan rabnaa sool iyo sanaag in si cadaalada dadka u tartamaya xildhibaannimada reerahooda loo daayo oo iyagu ay soo doortaan. waa idin salaamayaa meel walba joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.